waxaan leenahay maxaa waalidka loogu samafalaya waxa loogu samafalaya baan leeyahay ilaahay loogu yeero waxa loogu samafalaya in la raali geliyo waxa loogu samafalaya in la ateeco waxa laaliyo wixii aanay ku jirin macsida ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa loogu samafalaya baan leenahay haday weynaadaan ama gaboobaan in la xanaaneeyo haday labada waalid midkood kugu gabooba ama labaduba ba ilaahay yiri waxay necbaadaan ha ku oranin hana dagaalin baa la leeyahay war fiican oo qura ku dheh u dhimriyo u jilicsano baa la leeyahay subxaanahu wa ta'ala oo u naxariiso oo waxa tiraahdaa ilaahu labadayda waalidu naxariiso sidii iyaba markaan yaraaye taagta daraa ay soo rabeeyeen ay soo hayeen xasuusaba ilaahay leeyahay adigaba in calool lagu siday in lagu waday in xaar laga biinayay in lagu korinayay in aad oo jilicsan aan waxba qabsan karayn in lagu hayay adbata xasuuso iyaguna haday noocaan noqdaan hayba la leeyahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay waxa loogu samafalaya in la dhowro oo la ilaaliyo in gacanta loo furo hadiyad nafaqo biil wuxuu doonayaa ha ahaado nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamaya maxay tahaadu tahabu hadiyadiisa siiyo nabigu waa jeclaanaysa waxba haysto odhanin waalidka kuma baahna iyo waxba haystaa iyo waa kaas waa mas'ala kale waxa iska haysto iyo ku baahnaanin nabigu laakiin wuxuu ku leeyahay salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi tahaadu tahabu hadiyadiisa siiyo nabigu leeyahay waa jeclaanaysa asma bint abi bakr waa taylahayd ilaahi rasuulkiisa iyo hooyaday baa timid wahiya raagibatun aw raahiba afaasiluha ma xidhiidhiyaabay ku tidhi nabiga قال نعم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري حتى هدي كافرين بالكويلين هداني وحبا يسنوا كافرين قاليين ويقولوا النفقة ولذلك بقى أئمة الفقه وحيلين النفقة ظهرت كل بويلين هدي باهين حتى هدي قاليين بيلين وحين لنا هي والد كم حين نقص مفالله وحين نقص مفالينا حتى هدي دنتان kuwa iyagu jeclaayeen ay xidhiidhin jireen inaynu xidhiidhino waxaan leenahay wax loogu samafalo waxa ugu roon waalidku intay nool yihiin in saa loo xidhiidhiyo hadday dhintaanna kuway xidhiidhin jireen iyo kuwii ay jeclaayeenba in loo xidhiidhiyo in loo duceeyo hadday geeriyoodaan waa kuu nabigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay إذا مات ابن الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إنسانك هدور دنتو عمل كيسو واحد ما يكتاب كيسو صدح مويان صدقة جارية أو كتغي علم لا انتفاع سدو كتغي أو ولد صالح يدعو له النبي أما المفي عنه كتغي أو أسود دعية